halka waxaan kaga cabananaa oo bulshada isku soo baxday maayirka duqa magaalada Burco maayirka magaaladu waxa uu halkan xaafadan ku sameeyay calaadin gaar ah oo aad u culus oo islaamnimada ku culus oo bilaadanimada ku culus oo haddii waxa weeyaan dee laga warrabo waxaan laga warrami karayo maaha waa ila barkow halkan waxay lahayd booyad u keenta maalintii ummadda dhan ee halka degan ee sideeda waaxoo degan laba lowd booyaddii maalintii maayirkaasi uu ku fadhiistay kursiga uu ka jaray sabab laala sabab uga jarayna ma garanayno labarlaba waxa uu keenay xaafadan kala qoqob iyo kala shir iyo iska horkeenidu markii labaadna bilaabo horena waan uga hadalay waxaan leeyahay maayirka siyaasadda iyo masaakiinta waxay hala kala saaro oo ha loo kala saaro waxa weeyaan xisbi la dhaqayo xisbiyeed la dhaqayo iyo shaarka maayirnimada lagu fadhiyo meesha hala kala saaro wuxuu looga qaaday dadkii soo doortay talabaad hay'adda taakulo waxay gatay 160 taagi 100 lacaga iyo 300 lacaga baad xaafadda u keysay waxa uu yiri anagoo xaafadda yada si gacmo aysan wax dhibi ka jirin ayaa barasaabkan nafaqo u maqnaa xilada fadhiyay waxa lagu yiri xaafaddu way saysaa dan gaaraba laga lahaaye intuu maayirka la shiray ayuu siiyay guriga sabaya lukii laga soo doortay maayirka waxaan leeyahay oo aan ogeysiinayaa madaxweynaha qaranka wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha barakacayaasha maayirka gobolka ku fadhiya siyaasad gaar ah xisbiga u fadhiya xisbi masaakiinta waxeedina dad gaar ah buu ka leeyahay oo dad gaar ah oo soo doortay uga qaada waxaan leeyahay madaxweyne qarankaas wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin gudoomiyaha barakacayaasha ninkaasi annaga nama maamulo nama qusayo wixii la soo barana wuu naga qaadaya wuu noo awood sheegtay oo masaakiinta Soomaaliya waa sheegan Soomaaliya madaxdeena qaran waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha barakacayaasha ninka wax dambe ayaan loo sabrahan laga qabto